iskuullada sanad waxa ay ka mid yihiin kuwa ugu wanaagsan ee sida gaarka loo leeyahay ee Columbus ku yaal. Saddexda xarumood ee ku yaala waqooyiga, bariga iyo galbeedka waxaa ka go'an mid kasta bixinta waxbarasho tayo leh iyo soo saarista hogaamiyaasha mustaqbalka. Ilaa dugsiga hoose oo halka ay carruurtu ka bilaabaan tallaabada ugu horreysa ee dunida waxbarashada. Aadistooda dugsiyada sare oo halka ay ugu diyaar garoobaan mustaqbal leh fursado aan dhammaad lahayn. Hadafkeena halkan waa bixinta heerka ugu sarreeya ee waxbarasho tartan iyo dhiirigelin. Those people who started with us, they're still working. In badan oo ka mid ah ardaydeena aaday dugsiyada sare waxa ay heleen fursado muhiim ah oo u horseedaya aadista jaamacadaha sarsare. Waxbarashada caafimaadka iyo tiknoolajiyadu waa qayb ka mid ah tacliinta xiisaha badan ee aan bixinno. Waalidiinta iyo ardaydu waxa ay dareemaan inay qayb ka yihiin milkiyadda iskuulladeena oo ardaydu ka helaan madadaalo ka baxsan waxbarashada sida dalxiis, ciyaaro, booqashooyin caalami ah iyo dhiirigelin ardayda maskaxdooda sare u qaadaysa. Tartan aqooneedku waa kaalin muujinaya tartanka maskaxda ee iskuullada Senate, Ohio. Marka laga hadlayo dhinaca horumarka, waxaan gaarnay heer aad u sarreeya xagga waxbarashada. Sida ku xusan kaarka warbixinada oo xagga dambe yaal, waxaan haysanaa 5 stars ama 5 xidigood dhammaan saddexda iskuulba. Sidaas daraaddeed, waxaana loo aqoonsaday inaannu ka mid nahay iskuullada ugu tayada wanaagsan kuwa sida gaarka loo leeyahay. We teach them, but we educate them too. We're trying to, give them a good education while they're learning in a good environment. Every student, every staff member. Arday iyo shaqaale kastoo iskuulkeena ka tirsan waxay leeyihiin qiimo sarreeya. Waana muhiim waxaanu nahay koox isku xiran. Waxaan haysanaa shaqaale haysta ruqsadda aqoonsiga ee gobolka Ohio. Sidaa darteed, waxaan wax u barnaa si tayadeedu sarreyso. We do provide curriculum. All our teachers are highly educated and they are fully certified. We do provide all curriculum that require meet the rules, and we also do provide other activities such as sport. We do have basketball, we have a soccer, so we encourage everybody to be part of this school. Zenith High School has a little over 200 students. Dugsiga sare ee Senate waxa uu leeyahay ama haya in ka badan 200 oo arday oo ka kala yimid dhammaan qowmiyadaha kala duwan. Marka laga yimaado maadooyinka aasaasiga ah ee tacliinta, waxaan sidoo kale bixinaa 16 qaybood oo kala duwan oo waxbarashada xirfadaha iyo farsamada career technical education-ka, kuwaas oo ay ka mid yihiin IT-ga, kalkaalinimo, cilmiga caafimaadka, beeraha, cilmiga deegaanka, injineernimada roobadiyada iyo kuwa kale oo badan. At Zenith Academic High School, we promote communication and we ongoing also collaboration, ensuring that every voice counts. At Zenith Academy East, we were rated 4 stars for our academic achievement this past school year. Dugsiga hoose dhexe ee Zenith ee ku yaala bariga Columbus, waxaan u gaarnay xidigta afraad ee sanad dugsiyeedka la soo dhaafay marka la qiimeeyo. Taasna waxay sababtay in aan shaqaalaysiino macallimiin aqoon sare leh kuwaas oo sare u qaadaya tayada waxbarashada ee ardadeena oo noo sababtay helitaanka qiimeynta afraad ee uu gobolku bixiyo. I honestly love it here. Something that really drew me to Zenith Academy was this motto. When I was looking at the website to figure out what school I wanted to go to, they had a saying that it takes a village, it takes a tribe to build a village, right? It takes all of us to help develop these kids, and that's something that really drew me to Zenith Academy. I help students here. I give them a plan. I allow them to be successful no matter what differences they have, no matter what the percentages are against them. We work with students through CTE courses. We offer CTE nursing, CTE health. We do IT development here. We also do drone classes. We also help students definitely come up with a plan for their high school aftermath. This is the only school I've ever been at. I chose to stay at this school because of the amazing opportunities they offer, like CCP, CTE. When I say CTE, I mean like CTE art, digital art, nursing, classes like that really made me want to stay in this school.